xubnihii ka tirsanaa madashii hore ee musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya oo fadhi gaar ah ku yeeshay caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Kulankan ayaa ka dhacay guriga Sheekh Shariif Sheekh Axmed. waxaa goobjoog ka ah Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii toddobaad ee Soomaaliya, ra'iisul wasaarihii 19aad ee Xasan Cali Kheyre, madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, wasiirkii hore ee wafaafinta Daahir Maxamuud Geelle, madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabshukuur Warsame oo beri madashan ka tirsanaa ayaana ka qayb gelin shirka sababo aan si rasmi ah loo cadeena. abaabulka kulanka waxaa iska lahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed kaasoo wareegii koowaad ku haray doorashadii qabsoontay 15 May kadib markii uu helay 39 cod sida uu sheegay guddiga doorashada. xogta intaasi ku daraysa in Shariif Sheekh Axmed oo shirkaani hadallo ka jeediyay uu tilmaamay in ujeedada is-araggan ay qayb ka tahay in hoteelka Jasiira loo mahadceliyo martigelintii kulamadii siyaasadeed ka hor qabsoomidii doorashadii 15 bisha May. dhanka kale Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu mahadceliyay xubnaha midowga musharaxiinta sidii ula shaqeeyeen intuu madaxda ka ahaa golaha. macluumaadka la helaya intaasi ku daraya in Shariifka uu ka dalbaday dhigiisa kulanka joogtay in 6 biloodba ay mar kulan ku yeeshaan Muqdisho si u qiimeeyaan shaqooyinka iyo gaabiska xukuumadda lagu wado in dhawaan la magacaabo. lama oga haddii dhinacyada kale kulanka goobjooga ka ahaa inay Shariif la qaateen soo jeedintiis ama inay ku balameen fadhiyo kale oo aan la ogeyn waqtiga uu qabsoomi doono. Shariifka oo hadda xubin ka ah golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya ayaa sidoo kale wuxuu madax ka yahay xisbi siyaasadeedka Milo Qaran kaasoo fadhigiisu yahay Muqdisho. abaabulka iyo mas'uuliyadda qabsoomidda kulankan waxaa lahaa Shariifka kaasoo la tilmaamay inuu soo jeediyay in golaha uusan kala tegin una taagnaado xisaabtanka xukuumadda soo aadan hase yeeshee macadda go'aanka isku raaceen shakhsiyaadka ka qayb galay kulanka ayaa waxaa ka maqnaa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Cabshukuur Warsame kuwaas oo motor aan damin u ahaa mucaaradka farmaajo ka soo horjeeday. waxaan la isweydiinayaa ujeedka madaxweyne Shariif ka leeyahay dib u abaabulka siyaasiyiinta Muqdisho. Shariif Sheekh Axmed ayaa hore loo wariyay inuu aqbalay in loo magacaabo ergeyga gaarka ee madaxweyne Xasan u qaabilsan arrimaha dib u heshiisiinta qaran iyo wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland. waa xubin ka tirsan golaha shacabka waana hogaamiyaha xisbiga Milo Qaran. hadda ayaa waxay u muuqataa inuu sii bilaabayo mucaaradnimo uu ku wado dowladda cusub ee hogaaminayo madaxweynaha ee muddo isla soo dheefeen ee Xasan Sheekh Maxamuud. balse dad badan ayaa waxay isweydiin doonaa halka uu saldhigan doono geediga oo Shariif rarayo maanta. Muqdisho waa muraayadii Soomaaliya, waxay u baahan tahay maayar wax ka qabta dhibaatooyinkii muddada 30 sano ahayd ee ku jirtay. magaaladan Muqdisho waxaa soo maray dhowr iyo 10 maayar kuwaasoo isbedelay. duqa Muqdisho waxaa ku lamaansan jagada kale ee gudoomiyaha gobolka Banaadir 10kii sano ee dib u soo curashadii dowladdii dhexe ee burburtay. Muqdisho waxay marti u ahayd dagaallo, dhibaatooyin iyo abaaro dad ka soo barakacay gobollada dalka qaybahooda kala duwan oo soo gaaray Muqdisho. malaayiin ruux ayaa ku nool Muqdisho kuwa ay marti gelisay. markaad magaalada Muqdisho aad marayso dadku waxay hadal hayaan isbeddelka ka dhacay dalka 15kii bishii May, doorashadii uu ku guuleystay madaxweynaha iminka talada jooga Xasan Sheekh Maxamuud. markaad eegto goobaha lagu shaaho xarumaha dowladda oo ugu horeeyo aqalka dowladda looga arrimiyo Villa Soomaaliya, doodda ugu weyn waxay ka taagan tahay cidda noqon doonto maayarka hogaamin doona duqa Muqdisho iyo weliba gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ah 2 jago isdul saaran. dood ayaa ka taagan xilka gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir idoon cirka isku sii shareerayso. siyaasiyiin badan ayaa u taagan qabashada xilkaana. loolanka loogu jiro ka sokow waxaa xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee isla rabaan inay iyagu ka dhex bixin qofka loo magacaabayo xilkaana. siyaasiyiinta xisbiga ku jira oo deegaan ahaan ka soo jeeda Muqdisho gobollada Shabeellada Dhexe ayaa doonaya inay hantiyaan jagadan muhiimka ah loona arko mid dhaqaale badan laga samayn karo xafiiskan maadaama ay ku yaalaan labada il dhaqaale ee dowladda dhexe ku taagan tahay waa dekedda iyo weliba garoonka. sidoo kale waxaa jiro canshuuro badan oo laga qaado shacabka Muqdisho. gobolka Banaadir oo caasimadda ka mid tahay maamulkeeda qofka qabanaya gudoomiyaha ayaa waxaa sidoo kale jira shakhsiyaad ka baxsan xisbiga UDP ee talada haya oo loo saadaalinayo inay heli karaan xilkaasa. haddii aan soo qaadno qaar ka mid ah shakhsiyaadka ugu hadalhaynta badan
labadii toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa ka mid ah Axmed Meyre Makaraan oo ku caanbaxay Axmed Faal oo ah gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe iyo Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci oo gudoomiyaha degmada Wadajir hore u soo noqday ayaa liiska ugu cad shakhsiyaadka la hadal hayo waa labada Axmede. xogaha kale ayaa waxay tilmaamayaan in agaasinka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha gobolka Banaadir ninka lagu magacaabo Cabduqaadir Muxiidiin Axmed Dalxa uu helayo fursad xilkan duqa Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir loogu magacaabi karo waqtigana. dhanka kale waxaa soconaya Brenton iyo waliba galaangal ay ku leeyihiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta ugu tunka weyn Muqdisho sida Senator Muuse Suudi Yalaxo iyo xildhibaano kale ayaa la ogaaday in dad gaar ah ay wataan lana doonayaan xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir balse marka la caleemo saaro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sagaalka bishan ayaa la filayaa in la magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. dad badan ayaa iyagu waxa ay baadigoobayaan xilka duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir mar uun inay qabtaan waxaana jira rag iyaga ugu cad kuwa hore u soo qabtay xilkan kana mid ah xisbiga talada haya balse wax walba waxay cadaan doonaan marka digreetada Xasan Sheekh ee hadda gacanta ku hayo uu qalinka ku duugo. balse daawade adigu iyo kula tahay in mudnaanta la siiyo inuu noqdo duqa Muqdisho.